وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعن سلامينا اللبانة لبضة قلة برلمان كفدرالك الصومالية تردود تهاي سقاشن إيو شنطة مدنة ما أنت كلن كان اسكوبي يمد وحاربنا هالكان إن أمد الصومالية كله وذاقنو اللبانة تردود إيتا سقاشن إيو شنطة مدنة كترسان لبضة أقل برلمان كفدرالك الصومالية كلن كودان ما أنت وحكوساب سنة إن إسكور إستان مرحلة دان كالبجوركا دالكو أو قلي iyo firaaqa dastuuriga madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday 7 February marxaladaas kala guurka golayaasha baarlamaanka inay iskaga yimaadaan tala ka yeeshaan dalka iyo dadkana laga badbaadiyo firaaqan dastuuriga runtii arin ugub ah oo dalka aan hore uga soo dhicin waxaan go'aansanay annagoo mudanayaashaas baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa aqal inaan maanta halkaan uga dhawaaqno kutlo baarlamaaniya oo loo bixiyay magaca kutlada badbaadada qaranka si looga badbaadiyo dalka iyo dadkaba marxaladan kala guurka ay u galay waxaan dooranay oo kutladu iska dhex dooratay xubno guddiga oo 11 xubnooda oo sida aad arkayseen hadda hareerahayga taagan sidoo kale waxaan cadeynaynaa halkaan ka cadeynaynaa in mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waqtigiisa uu dhamaaday oo ku ekaa 7 February sidoo kale waxaan halkaan ka cadeynaynaa wax muddo kordhin la yiraahdo oo loo sameey karo ama loo sameeynayo madaxweynaha inaysan jirin sidoo kale waxaan halkaan ka cadeynaynaa xukuumaddu inay tahay xukuumad xilgaarsiina sida ku qoran qodobka 103 ee dastuurka federaalka Soomaaliya shaqada ay qabanaysan ay tahay shaqooyinka caadiga ee wax qaraarada siyaasadeed oo masiirka dalka iyo dadka quseeya aysan xaq u lahayn sida dastuurku tilmaamayaba waxaan sidoo kale halkaan runtii ka cambaaraynaynaa falkii maalin dhaweed oo shalay ahayd golaha shacabka ciidamo dharcada oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda gudaha loo soo geliyay xarunta baarlamaanka iyo hoolka shirarka baarlamaanka oo runtii tilaabo sharci darro xadgudubna ku ah dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka waxaan ugu baaqaynaa guddoonka golaha shacabka geliyay xarunta baarlamaanka iyo hoolka shirarka baarlamaanka oo runtii tilaabo sharci darro xadgudubna ku ah dastuurka iyo xeeroosaadka golaha shacabka waxaan ugu baaqaynaa guddoonka golaha shacabka una cadeynaynaa inaanan aqbalaynin in gudaha lala soo galo ciidamo aan ahayn kuwa rasmiga ee booliska ee baarlamaanka federaalka ama golaha shacabka uu leeyahay haddii arintaas soo laabatana runtii waxaan cadeynaynaa inay baarlamaanka naftoodu halis ku jirto laguna qasbanaa doono qof kasta oo mudanayaasha baarlamaanka kamida inuu difaacu nafsi galo oo qolo waliba ay ku soo talagasho mudanayaasha baarlamaanka inay naftooda ka ilaaliyaan ciidamadan sida sharci darrada lagu soo daabulay xarunta golaha shacabka iyo hoolka shirarka ee golaha intaba waxaan sidoo kale runtii cabaaraynaynaa isku dayga maalmihii la soo dhafay la isku dayay in warbaahinta madaxa bannaan la caburiyo loo diido inay gudaha u soo galaan xarunta baarlamaanka tabiyaan waxa halkaas ka socda sidoo kalena ciidamo dharcada inta la keenay xarunta baarlamaanka gudaheeda dhalinyaradii ka socotay warbaahinta mid ay ula hadlayaan sawir ka qaadayaan handadayaan ay leeyihiin waan idin dilaynaa wax la aqbali kara maahan waana arin ka soo horjeeda shuruucda dalka u yaala iyo xorriyadda oo runtii arin ugub ku ah iyada ruuxeeda dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidaas daraadeed maadaaba xukuumaddu ay ku fashilantay hirgelinta doorashadii lagu heshiiyay 17 Sebtembar madaxweynuhuna uu ku soo fashilmay in shirkeedu Samareeb 4 looga tashanayay aayaha Soomaaliyeed iyo xalinta madmadowgii ama khilaafaadkii ka dhashay heshiiskii doorasho ee 17 Sebtembar ay ku heshiiyeen madaxda qaranka iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka golayaasha baarlamaankuna sida wada jira u ansixiyeen in wixii xilligan ka dambeeya jihaynta dalka jihada uu aadayo iyo badbaadintiisaba ay tahay arin u taala
inay go'aan ka qaataan golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama ay yihiin jihada rasmiga ee metelaysa shacabka Soomaaliyeed.